بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حسن إذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayaan idin wada salaamaya asxaabteeda quruxda badan ee sharafta leh. waa maalin kale oo qurux badan maasha Allah tabaarakallah. aad baan idin wada salaamaya meel kasta daafaca caalamka joogtaan. qofkay habeen u tahay waxaan leeyahay habeen wanaagsan, kay maalin u tahay maalin wanaagsan, kay xilliyadeedan oo kale fiid u tahayna fiidnimo wanaagsan baan idin leeyahay dhammaantiinba. maasha Allah dhammaan waxaan rabaa horta inaan gacmo furan idinku soo dhaweeyo saaxiibada quruxda badan ee cusub ee ii yimi. gacmo furan qalbi furan ku soo dhawaada biidmillaahi raxmaan. farxad igala kulma, xumaan iyo ceeb ilaahay idankiisa igalama kulmi doontaan. ilaahayna waan ka magan gelayaa wixii xun oo dhan. idinkana ilaahay subxaana wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa inuu idin ammaansado meel kasta daafaca caalamka joogtaanba. qofka xanuunsan ilaahay ha caafiyo, inta xanuunsan ilaahay ha caafiyo, xanuunkana dembi dhaaf Allah uga dhigo, inta caafimaadka qabtana Allah subxaana wa tacaala ha u siyaadiyo. allahumma aamiin. video yar baan soo kor saartay oo aniga oo maaragtay meel ka yimi insha Allah ah baan cod iska yar kor saaranaya haddii ilaahay yiraahdo. waxaan igu kalifay inaan codkan soo duubo walaalaha commentiga aan jeclahay quruxda badan baan marka hore rabaa inaan idinkaga mahad celiyo. waxaa jirta laba qof oo si gaar ah su'aal ii weydiiyey, miyay ila taliyeen, miyay maaragtay ii weydiiyeen su'aal ma kala garanayo, laakiin xoogaa waxaa moodaa inay handadayaan, si waxaa moodaa inay wax ii sheegayaan, sina waxaa moodaa inay su'aalo ii weydiinayaan. marka ma garan karo. waan jeclaa weliba inaan halkan soo saaro commentiyada, waana isku dayi doonaa haddii ilaahay yiraahdo anoo qofka magaciisa qarinaya inaan commentigiisa bal soo share gareeyo. ka u horeeya hadda isku dayo gabadh waxay igu tiri qof kale gabadh magaceeda ugu qornaa waxay igu tiri maxaad haddaad cadaalad aad sameynaysid maxaad u dhexdhexaadin weyday xamdi iyo gabdhaha kale bay igu tiri miseba igu tiri fiyus raadis baa tahay. hadday daacad kaa tahay maad soo bahalkeysid, maad dhexdhexaadisid, iyadaana caytamaysa iyada maad qabatid. marka anigu runta haddaan ku sheego anaan jeclan qof mujtamacayga ka mid ah Soomaaliyeed asaan haddana wax ii soo qoraya inaanan maaragtay hadalkaas dhaho, laakiin waxaan rabaa in yar insha Allah wax inaan waadixiyo. marka horeysa walaalo haddii aad codkan maqashid, anigu qaadima ihi dadkana ma dhexdhexaadiyo, dacwana layma soo gudbisan oona dhexdhexaada layguma odhanin. haddii aad ka wadid dhinaca kale oo maaragtay islaax bayna naas haddaa ka wadidna adiguba caqli baad leedahay, arrin aad dhexgeli kartid ma aha. anigu xamdi waa gabadh walaashaya, waxaan aaminsanahay inaan qaban karo ina maqlayso, taasaan aaminsanahay. alxamdulilah waana ku faraxsanahay walaashay inaan aaminsanahay inaan qaban karo wax badanna maaragtay haddaba xamdi ay dadka ka maqasho, ayadana maaragtay gabadh caqli badantoo isqaban karto, saasaan ka aaminsanahay. laakiin aniga gabdhaha kale walaal macaan qof aad aragtid 24/7 caytamaya ama wax xun oo negative soo daynaya ama xitaa duusan isagu markaa caytamin qofka uu soo qabanaya caytamayo, anigu marnaba qofna kuma taageerayo. qofka noocaas oo kale sameynayana lafahayga inaan ugala cararo mooyaane dee maraba inaan qalbi madoobaad ka qaado ma rabo. midda kale anigu dee ma qaban karo gabdho maamooyin hooyaday laaleeg aniga dee ma qaban karo. waxaan qaban karaa qofka dhalinyarada ah ama ileeg ama iga yar baan qaban karaa, laakiin qof iga weyn aniga waqti uma hayaan ku qabto dhaho ayda joojaan ku yiraahdo maxaan dhahayaa aniga. midda kale laba malag baa garbaha u saaran, aniga shaqadayda maaha. sidaa daraadeeda haddii iyaga la dulminayo aan arko iyagoo la dulminayo waan ka celin karaa, wax waana canaanan karaa qofka maagaya, laakiin aniga ma samayn karo taas. maaragtay lafahayga banaankayga ilaahay baan ka maray. walaashay xamdi oo la dulminaya arkay saasaan uga hadlay. qof kale la dulminaya insha Allah haddaan arko waa hadli doonaa biidmillaahi raxmaan. qof kale wuxuu igu dhahay xamdi iyada ayaa intaasoo sano haddaad daacad sheegaysa kaltuunay xamdiyada intaasoo sano qabiilo caayaysa. xamdi qabiilo way jirteen caayada iyadana la caayay way soo dhammaatay, laakiin waxaan hubaa ilaahayna aan la hortegayaa hadda right now in iyada weli la caayayo. oo wixii ka cabanaysay tidahaysa weligay waana lagu caayi jira, hadda dhagahaygaan ku maqlaan lagu caayayo. aniga la igu yiraahdaa naagta reer hebel caayada maxaa ugu hadlaysaa waxaa saaya ah
qofka waxaaba jawaab ugu filan oo adaaba hadda caayaya maxaa ka sheegaysaa dhowr sano ka hor marka intaasaan idin leeyahay anigu cidna garab ma siinayo laakiin walaashay in cidna la dulminayo ma rabo qof kasta oo bila aadan aan arko inuu dulman yahayna gaal iyo muslimna waa isku daya inta awoodeyda inaan garab istaago gabadha Soomaaliyeed walaashayna iyadana sidoo kale ayaa iyadana aanu garab istaagayaa inta hawsheedu ka soconaysana waan ishaan ku haynaya insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka bariyaa dhexdooda masaaraxa khayr qabta Allah dhigo anigana ilaahay subhanahu wa ta'ala afkayga iyo idinkoo dhan wax wanaagsan Allah ka soo wada saaro wixii dambiya Allah naga cafiyo wixii khayrahan ku hadalna ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka inoo saaro dhamaantiina waxaan idin wada rajeynayaa guul bashbash iyo barwaaqo meel kasta daafaca caalamka joogtaan farxad kala jooga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh